soo aragnay ay saxaafaduna makhraati ka tahay saxaafadana la socota oo saxaafadii gudaha iyo tii caalamiga ahayd bay makhraati ka yihiin dhibaatadu inta ay leegtahay iyo burburka dadkii lahaa jabhadi ma jirto kaale balad xawa aragteena dadkii lahaa Kenya dagaalka kuma jirto kaale arka hoobiyaashii madaafiicda dadkii lahaa dhib ma dhicino kaale arka walaalada halkan ooyayaanu la ooyina la murugaysanay dadkii la lahaa waa siyaasado kaale balad xawa dadkii lahaa guddi baanu nahay balad xawa dhibaato kama jirto kaale magaalada arka iyo dhibaatada dhacday dadkii bari yeelayay Kenya kaale arka maanta xaaladdu sida ay tahay hadal badan maanta noomeeka waanu caadifadoonay waxaanu luminaynaa erayadii aanu islahayndaha marka insha Allah waynu guuleysanaynaa waxaynu ka guuleysanaynaa cid walba ina soo weerarta waxaynu ka guuleysanaynaa cadowga dibadda iyo cadowga gudaha inagu waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa derisnimo waxaan rabnaa walaalnimo laakiin walaynaa la fahmi lahayn waxaan rabnaa magaalooyinkeena oo dhan inay nabad ku noolaadaan Jubbaland nabad noqoto geedo nabad noqoto balad xawa nabad wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga dowladda Soomaaliya ee tagay gobolkaasi Gado qaasatan Luuq iyo Doolow iyo Buulaxaw wasiir Dubbe ayaa sheegay in wafdigii igad ka socday ay ka been sheegeen xaqiiqda ka jirta halkaasi oo ciidamada soo weeraray xuduudda Soomaaliya ama balad xawo ay yihiin ciidamadii Jubbaland ee Kismaayo iyo gobolka kale laga kala keenay oo dowladda Kenya ay soo tababartay wasiir Dubbe oo halkaasi ilmo ay ka daadanaysay xilligii uu hadlayay kadib qiimeyn uu sheegay inuu ku sameeyay qasaarihii magaalada ka dhacay iyo halkii qoys ee ilmahoodii halkaasi ku waayeen 5 cunug ay dhaleen iyo qasaaraha iyo burburka daarihii dhaadheera ee magaalada balad xawo ay maleeshiyaadkii soo weeraray ay halkaasi u geysteen wuxuu sheegay ciidamada dowladda Soomaaliya in ay sidii hadda casharka ugu dhigeen oo kale ugu dhigi doonaan cidii kale ee isku dayda in ay soo weerarto xuduudda dalka Soomaaliya oo cadow shisheeya u shaqeynaysa wasiir Dubbe sidoo kale wuxuu sheegay in xaqiiqda meesha taala ay tahay in dowladda Kenya ay mar walba qadar ku wado dalka Soomaaliya iyadoo ka shaqeynaysa kala geynta ummadda Soomaaliyeed rabtana in ay qalalaasa gudaha dalka Soomaaliya iyo jimhado aan hadaf lahayn ay u abuurto dalka Soomaaliyeed wasida wasiir Dubbe uu yiri wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba wixii ka soo kordhay Shaariba Show ayaad kala socon doontaan wafdigaasi oo sheegay qasaarihii halkaasi ka dhacay haddaad ku cusub tahay channel-kana subscribe ka saaro si aad mar walba aad nala socotid وشاربة شو تي في أو إلى عاوي أنت سوكسو جبنا وربحنا كوبان أنا كرسو ديارنا وفتي دولة فدرال كاي صوماليا بوغدي قبل كجدو إن شاء الله بإذن الله كريم وربحنا ذا كلنا والله سعون دونتان صوص عدا سبسكرايب كسي صاروا لايك تا صاحب بدنا اللي أو سي شير جره